بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. waxaan jecelnahay in aan halkan ka soo jeediyo muxaadaro ku saabsan alxaj waalcumra. ugu horantii ka hadli doonaa xaj wuxuu yahay, xaqiiqadiisa maxay tahay. xajku waa ruknun min arkaan islaam, waa ruknun min arkaan islaam. shanta rugni ayuu ka mid yahay oo islaamka ku dhisan, tiirarka uu ku saaran yahay islaamka. waa aruknu alkhaamis, waa rukniga shanaad. wuxuu yihi ilaahi subxaana wa tacaala: walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istadaaca ilayhi sabiila. ilaahay wuxuu leeyahay, dadkana uu ku leeyahay, in beytka ay u xajiyaan, u qasdaan, ay aadaan, ay u danaan. qofka ayuu ilaahay ku leeyahay awood u leh oo tegi kara beytkaas, tashiilaadkii heli kara, caafimaad heli kara, qofkii awood u leh ayuu ilaahay ku leeyahay. can ibni cumar radi allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam qaal: bunya alislaamu calى khams: shahaadati an laa ilaha ila allahu wa ana muxamada rasuulu llah, wa iqaami الsalaati, wa iitaaءi الzakaati, wa sawmi ramadaan, wa xaji اlbeyt man istadaaca ilayhi sabiila. islaamku waxaa lagu dhisay shan tiir ayaa lagu dhisay, wuu yihi rasuulka alay salatu salaam: bunya islaamu calaa khams: shahaadati an laa ilaaha ila allahu wa ana muxamadan rasuulullah. waxaa lagu dhisay marakicid iyo qirid, in la qiraa ilaahay maahane, alla maahane ilaah kale uusan jirin, wax la caabudo oo kale aysan jirin, allah maahane. nabi maxamedna uu yahay rasuulka ilaahay uu yahay. in salaada si fiican loo taagaa, in zakada la gutaa, in ramadaanka la soomaa, in beytka ilaahay la xajiyaa. wuxuu noqday rugniga shanaad. wuxuu dhahay abi hurayra, xadiid uu werinayo, wuxuu leeyahay rasuulka ilaahay ayaa noo khudbeeyey, rasuulka ilaahay ayaa noo khudbeeyey. rasuulkaa noo khudbeeyey wuxuu dhahay, uu yihi: yaa ayuha annaas, ina allaha qad farada calaykum alxaja faxujuu. ilaahay wuxuu idinku farad yeelay xaj ee xajiya. nima wuxuu yihi: akula caam yaa rasuul allah, ma sanad walba? fasakata, rasuulku uu iska aamusay sala allahu calayhi wasalam, xataa qaalahaa halaata, saddex maruu ku celceliyey. su-aashaas ayuu saddex mar ku celceliyey. rasuulka ilaahay wuxuu dhahay: low qultu nacam, haddaan haa dhihi lahay, la wajabat, way waajibi, xadkaas waa waajibi laha sanad kasta. walama stadactum mana awoodeen, rasuulku wuxuu yihi sal alla alay slam, wuxuu dhahay: daruunii maa taraktukum, idhaafa intaan idinka tegayo, oo wax su-aalooyinka ay ugu badbadinina. wuxuu dhahay fainamaa halaka man kaana qablakum, waxaa haligay dadka idinka horeeyey. fainamaa halaka man kaana qablakum, dadka idinka horreeyey waxaa haligay bikahrati su-aalihi. fainamaa halaka man kaana qablakum, dadka idinka horreeyey waxaa haligay bikahrati su-aalihim, su-aashooda badada haligtay. waاkhtilaafihim ayaa haligtayo
calaa anbiyaa'ihim ambiyadu ay khilaafeen. fa idaa amartukum bishayin shay haddii aan idin amro faatuu minhu waxaad kala timaadaan ma sadactum waxaad awoodaan. wa idaa nahaytukum can shayin shay haddaa idinka reebana fadacuuhu ka taga. bas waxaan ka qaadanaynaa sanad kasta ma aha waxaa la iska rabo cimrada iyo xajkaba cumrigaada hal mar ayaa lagaa rabaa. cumrigaada hal mar ayaa lagaa rabaa. sanadkaas aad soo xajinaysid shuruudii uu leeyahay ka keeni doona insha allah. waa inaad adiga qof caaqila aad tahay, mamluug iyo qof laleeyahay addoona aadan lahaynin, oo qof ibni aadam uusan ku lahayn. waa in qaangaar aad tahay. haddii lagaa helo shuruudahaas xajkaada waa ansaxa insha allahu tacaala. waxaan hore aan kasii hadli doonaa insha allah fadliga ou leeyahay. maxaa fadliga u leeyahy marka waxaan ka hadalnay xaqiiqadiisa iyo ayaan ka hadalnay. sanadka hal mar ayuu waajibaa, macnaa caamka sanadkaada o dhan cumrigaada hal mar ayuu waajibaa. laakiin fadliga laga helayo nabigaa la weydiiyey sal lla ly slam waxay ayu camali afdal, camal ugu fadliga camalka ugu fadli badan ee aan sameynayo muxuu yahay? ayu lcamali afdal, camalkee ugu fadli badan? rasuulku wuxuu yhi slam iimaanu billahi wa rasuulih. inta camal aada qabatid waxaa ugu fadli badan iimaanu billahi wa rasuulih, inaad rasuulka ilaahay aada rumaysid, rasuulka aad rumaysid. waxaa la yihi qiila uma maada, maxaa kale? uma maada, maxaa kale? wuxuu yihi aljihaadu fi sabiili illah, aljihaadu fi sabiili illah, ilaahay dartiis loo jihaado. qiila waxaa la yihi uma maada, maxaa xiga? xaju mabruur. qaal wuxuu yihi xajun mabruur, xajka oo mabruurka ah waa xajka mabruurka cumar waxay ku fasirin huwa aladi laa yartakibu saaxibuhu fiihi macsiya. waa midka xajka qofka sameynayo ausan macsi sameyn, cisyaan khilaaf ilaahi ausan ku sameynin, shareecadausan ku xadgudbin intuu xajkaas ku jiro. marka xajkaas mabruurka ah sidaas ayuu u fadli badan yahay. idan waa inaad is ilaalisid, qalbigaada aada ilaalisid, indhahaada aada ilaalisid, lugahaada iyo gacmahaada aada ilaalisid. waayahay waa xubnahaada dhan inaad ilaalisid. waxaa kaloo jiro xadiis rasuulka sal ly slm ku dhahay man xaja, qofkii xajiya falam yarfuth walam yafsuq, aan rafath iyo fasqi aan sameynin, aan xumaan aan sameynin, oo wuxuu yihi waxaja xajiya. man xaja qofka xajiya walam yarfuth, aan rafath aan sameynin, walam yafsuq, aan fisqi aan sameynin, rajaca wuxuu laabanaya ka yawmi waladatu ummu, ka yawmi waladatu ummu, hooyadiisa oo dhashay oo kale usoo laabanaa. markuu soo laabanayo wax dembi ah asigoo dul saarnayn ayuu soo laabana. oo hooyadiis markii dhadheeday ma uusan lahayn wax dembi ah ma uusan lahayn. haddana sidoo kale asigoo ah ayuu soo laabana. idan waxaa waaye waa fursad islaamka ay soo marto sanadkii mar, iyo fursadda soo marta sanadkii mar. caaisha radi allahu canha ayaa waxaa laga wariyey waxaa iri tiri qaalat qultu ya rasuula allah sala allahu alayh wasalam nara jihaada afdal alcamal, waxaan aragnaa inta jihaadku inuu yahay afdal camal, inta la qabta kan ugu fadli badan, inta la sameeyo kan ugu fadli inuu jihaadka yahay. afalaa nujaahidu, miyaanan jihaadayn? annaga jihaadi mayno miya? afalaa nujaahidu, miyaanan jihaadayn? rasuulku wuxuu sal slam walaakin afdalu jihaadi xaju mabruur, laakiin jihaadka kan ugu fadli badan waa xajka mabruurka ah. waa wax fisqi aan lagu dhex samayn, isyaan aan lagu dhex samayn,
kaas waay. waxaa la barbar dhigay marka jihaadkii oo ahaa naf iyo maal la bixinaya. naftaada aada quureyday adigoo ogeyn inaad soo laaban doontid, halkaas inaan ku ruux baxayd ayaa door biday bikalimatillahi alculya, kelimada ilaahay in ay sara tahay ayaad u dadaaleysay, ayaad u ijtihaadaysay, ayaad u dagaalamayd. taas oo ah oo dirwatu sinaam islaamka islaamka kuruskiisa waa mid foodteeda waa foodiisa waa meesha meel ugu sareyso, meesha daraja ugu sareyso islaamka laga gaaro waa dee naftaada baa ogolaatay in islaamka ka bixisid. markaas xaji mabruur la dhicnay, xaji mabruur ayaa muqaano lagula sameeyey. marka waxaa dareemaydaa inuu fadligiisa aada u fadli badan yahay. allahna dadka ka faa-ideysta waa in markastaba qalbiga lagu hayaa fursadaas. waxay tiri caaisha radi allahu canha, maa min yawmin akthar min an yactiqi allahu min annaari min an yactiqi allahu fiihi min annaari min yawmi carafa. waxay tiri ilaahay, waxay tiri ma jirto maalin ka fadli ka badan oo ilaahay xoreeyo, wax naarta ka xoreeyo maalinta yawma carafa. intoo ilaahay xoreeyo, maalin oo ilaahay wax xoreeyo, maalmo badan waa jiraan ilahay xoreyn ba dhiibayo, laakiin wax kaga badan maalinta yawma carafa ma jira. maalinta yawma carafa intuu xoreynayo ayaa ugu badan. maalinta carafa waa maalin la taagan yahay, banka carafa la taagan yahay, ducada ee maqbuula ay tahay. waa maalin laga faa-ideysto, waa fursad aan is dhaafin. midka joogay iyo midkaan jooginba intaba inay ka faa-ideystaan. midka joogay ka faa-ideysto makaankii uu taagan yahayba oo rasuulka alai sala slam istaagay, meeshii ilaahay oo rugniga ka dhigay, rugniga ugu weynaayo xajka. waa maalin cibaado maalintaas, ma aha maalin cayaar iyo maalin falaad iyo maalin meelas ka dadawdo ee laga dhigto dalxiis ama laga dhigto maaha. waa maalin mudan in ilinta la daadiyo. waa maalin mudan in wax andhaara wixii aada u baahantahay adduun iyo aakhiro ilaahay la weydeysto. waa maalin adduun aan ilaahay la weydiin, aakhiro la weydiiyo. waxaan yiri saxaabi ahaa waxau la kulmay u arkay mid tuugsanayo carafana joogo u dhahayo wax isii, carafuuna taaganya. dadka carafa joogay ee carafada ka faa-ideysanayay, rugniga carafa sameynaya ayuu wax weydiisanaya. tanta u yimid waxay noqon doontaa. wuxuu arkay ninkii iska tuugsanayo oo dadka adduunyo iska weydiisanayo. markaasu wuxuu yihi maantoo kale miyaa adduunyo la weydiistaa? maantoo kale miyaa adduunyo la weydiistaa? maalintii ugu fursadda fiicneed oo ilaahay la weydiin lahaa inuu ilahay naarta kaa xoreeyo, inuu ilaahay kaa dhigo saalix, inuu ilaahay kaa dhigo muslix. saalix oo ah qof hagaagsan, muslix oo ah mid dadka hagaajiyo, ummadda hagaajiyo. oo ilahay kaa dhigin daali, mid lunsan, mudil dadka lumiyo ilaahay kaa dhigay. marka maalintaas carafa waa maalin aada u fadli badan. runta cabaaraadka la daadsho. waa maalin la dembi dhaafo, oo dembi dhaaf dadkaas ilaahay kugu qadinin, oo dadkaas loo dembi dhaafayo ilaahay kaama digo, lagu duceysto. xajka dadna waa loo soo xaji karaa, nafsadana waa loo soo xaji karaa. xasabta kaliya markaad usoo xajinaysid in adiga aada xaj qabtay oo xajatu islaamku kaa dhacay, hore kaaga dhacay. maxaa yeelay rasuulka ayaa waxa weydiistay haweeney, waxay tiri rasuulka ilaahiyow, waxay tiri aabahay horta ilahay ku fardiya tiri dadka xaj iyo ilahay ku fardiya.
aabahay waa dad shay duqa waa sheekh kabiira waa waxay dhahday daabadiiba kuma sugnaa karo daabadii xilligaas daabada la fuulayay waxyaabahan hadda oo casriga ma jirin marka daabada ma ku sugnaa karo afa axuja can ma ka xajiya kasuu yiri nacam ka xaji u dhahay laqiid bin caamir radi allahu canhu nabigu u yimi sal ly slam wuxuu yiri ina abii shaykhun kabiir aabahe waa duquu yiri aada duqa ah laa yastadiicu lxaj mana xaji karo wuxuu dhahay wala cumra xajna ma awoodo cumrana ma awoodo dhahay walaa dacan inuu guurguur usocdo ma awoodo maxaa la sameynaa wuxuu dhahay rasuulku wuxuu dhahay xuja can abik aabaha ka xaji wactamir kana cimray aabaha ka xaji wactamir kana cimray idan dadka waa laga soo xajinaa waana laga soo cimraynaa haddii adi xajatu islaam aa qabtid laakin haddaada xaj adi aan qabin qof kama soo xaji kartid bal anug yar ayaa loo xajisii karaa maxaa yeelay cabdullah bin cabaas xadiis oo werinayo wuxuu dhaha nabi sal l slam laqiya rukbaana safar ayuu la kulmay birooxa safar oo rooxa meesha la yiraha marayaan ayuu la kulmay man qowmku waa kuma markaasay dheheen almuslimuun waxay dheheen muslimuun man anta waxay dheheen adigu yaa tahay wuxuu dhahay rasuulullahi rasuulka ilaahiyaan ahay kusaas dhahay farafacat imra'atun haweenaya waxay kor usoo qaaday ee rabiga ay tustay sabiyan faqaalat xita ali hada xaj kan xaj maleyta kan xaj maka asaxa markaasuu yira nacam walaki ajru haa xaj wuu leeya adna ajra leedahay idaa ka xajinayso idaa way xambaarsantaha way wada amaakintii idaa xajka uxerayso idaa waxaas dhan ka samaynaysaa way wada amaakintii marsiinaysaa dalika waxay leedahay ajirkii leedahay ajirna waa leedahay asidina xajku u ansax maxaa lay marka xajku waxaa waaye wuxuu leeyahay arkaanuu leeyahay wuxuu leeyahay shuruuduu leeyahay wuxuu leeyahay muxaramaaduu leeyahay idan xajka shuruudiisa waxaa waaye todoba shay qofka inuu muslim yahay inuu qaangaar uu yahay inuu caqli uu leeyahay marka qofka waajiban ka hadla markuu ku waajibaya xajka inuu muslim yahay inuu baaliq yaho qaangaarsan yahay inuu caaqil yahay uusan waalnayn inuu xur yahay uusan ahayn addoon wujuudu zaadi inuu sahay heli karo waraaxila daabadii oo fuuli lahay halkaasku tegi lahay loo helahay duu u baahan yahay watakliyatu dariiq waddada inay maran tahay oo wax dhacayo dilayo hantida ka dhacayo aysan joogin imkaanu masiir socodka inay suurtagal uu yahayo markii intaas isku helay oo awoodihii helay hadduu hadda baxo ma ka gaara masale hadduu ha ka gaaro oo carafo istaageeda ka gaari kan ugu dano carafo istaageeda ka gaari karo markaas waa socodka u suuroobay hadduu baxo hadduu laakiin imkaanu masiir la waayo oo markii intaas kulansaday shuruudaan ka maqnay shuruudii kulansaday hadduu hadda bax kamaba gaara markaas sanadkan bay udhici doontaa sanadka dabo iyo udhicisa hadda sanadkankaas waajib kuma aha xajka wuxuu leeyahay arkaan oo laga maarmaana alixraam maca niya inuu niyo la yimaado inuu xajkii gudagalayo ama xajkii inuu gudagalayo alixraam maca niya xajkii inuu xirto xarmado niyo la yimaado waa inuu gudagalidu dukuul nusuq camalka inuu gudagalayo الدخول في النص قولي سنة إنه عمل قد قلع الوقوف بعرفة إنه عرفة استهاجه ورسولي سنة إنه عرفة استهاجه والضواف بالبيت والضواف بالبيت إنه بيتك أو كعبدة أو ضواف تضوع والسعي بين الصفا والمروة إنه بورت الصفا بورت مروانة تضوع مر أو تغو صفو كبلابنا مروة تغا maruu soo laabana safar markuu safar ka bilowdo oo marwo tago wuxuu joogaa kow hadduu marwo soo laabto uu yimaado safana wuxuu joogaa labaad tadoo mar soo ku dhamayna wuxuu haystaa marka afar rugni
alixraam maca aniya, alwuquuf bicarafa, aldawaaf bilbeyt wasacyi bayna asafa walmarwa. cumrada ayadana waa sida arkaanta socodka leedahay ilaa carafa laga rabay meelaas alwuquuf carafa bas ku jira. haddii cimraysanaysid alixraam waa sameynaysa maca niya, dawaaf waa sameynayda, sacyin waad sameynayda. waxaa lagu daraa marka xalqi. waxay leeyihin xalqigu waa rugni, ama madax xiiratid ama madax aagaabsatid, waa rugni, khilaafa ka jiro, si raajic waa rugni. xajka wuxuu leeyahy waajibaad ka banaan kama banaan arkaanta. arkaantina waa meel, waajibaadna waa liida, sunooyina uu leeyahy. marka waajibaadkiisa marka xeranayd waxaan soo sheegnay inuu rugniga oo koowaad u yahay alixraam horta maca niya, inaad marka hore niyo la timaado. niyadaas markaad niyeysanaysid waxaa waajib ah inaad miiqaadka soo xirtid. miiqaadka wuxuu yahay amaakin oo rasuulka sal slam oo adiga marka u jirto mid ugu sugaysa u jirta laba maalin socod u jirto masaafat lqasri. marka halkaasaa tegeyda markaad joogtida soo niyeysanaysa. marka taasaa waajib ah. waajibkaas haddii laga tago maxaa waajibayo waan arki doonaa insha allah. maxaa waajibayo waan arki doonaa. marka waajibkaas kow waa inaad miiqaadka soo xiratid. hadda miiqaadka annaga iyo dadka xaggeena soo jiro yamanta maxaa yihahdaa ethoobia, adiga waxa waa yalamnum. annaga waxaan ka xirnaa yalamnum ayaa miiqaadkeena ah. yalamnum aan ka xirnay marka diyaaradda markay meesha marayso ayaa lagu sheegaa, markaasoo xirnida. haddii aad doonto inaad cimraysatid ama inaad xajisid, aad doonayso waqtiga aad joogtid hadda inaad hore ka xiratid, aad madiina iyo marka aan ka bilaabanayni. xajka marka waxaa dhaha waajibaadki waxa waa alixraam almiiqaat wa ramyu ljimaar athalath, inaad godgodaha saddexda ah la tuurto. kiiba lagu tuuraayo 7 dhagax. waxaa idaa ku jiro meesha waxaa ku jiro alxalq, xiyada madax in la xiro xajka marka la joogo waa waajib. rugniga arkaanta kama tirsana, waajib. almawid bimusdalifa, in musdalifa la baryo, lagu hoydo markaad timaadid habeenka carafa ka timaadid, musdalifa aad timaadid, musdalifa imaanida, musdalifa ku baryada habeenkii 10aad, subaxdii 10aad marka dhagax tuurka aadida waa waajib. almawitu biminana, mina in lagu baryaana waa waajib. mina waxa baryada habeenka 11aad, 12aad, 13aad, 3 habeen lagu baryaa. haddii aad 11aad iyo 12aad ku baridid kadibna aad baxdid intaas 13 habeenka 3 isun kuu gelin, aad iska baxdid kaba guurtid way ku banaan tahay. 3 habeen marka lagu baryaa, hal habeen wuxuu kaaga go'i karaa haddaad maalinta 12aad dhagax markaa tuur hor u baxdid, qalabka aqaad intaysan qoraxda kugu dhicin iska baxdid. dawaaf waxaa waajib ah dawaaf wadaac. markaas soo bixidid waa inaad ku laabato beytka ilaahay soo macsalaamaysid. dawaafkaas dawaaf wadaac loo yaqaana waajib waaye sida raajixa waajib waaye. qofka waxaa xaaraamka ah inuu xirto intaan taas u gudbin maxaa suno ah ka sheegay sunada. waxaa suna ah qofka markuu kuu soo galayo dawaaf alquduum inuu sameeyo. hadda waxaan dhanay markaad baxeydid dawaaf macsalaamaysaa sameynaysa, waa waajib. ilaa waxaysan ku waajibin gabadha markaas xilligaas caada hayso ama xilligaas nifaas hayo kuma waajibo kaas, iska bixida taas. laakiin dadkan kale way ku waajibay. dawaafka marka dawaaf alquduum dawaaf la yirahdo oo marka kow soo gasho geedka ina salaamta laga rabaa. geedka waxaa lagu salaamaa dawaaf. masaajidka waxaa lagu salaamaa salaad tahiyatul masjid. beedka waxaa lagu salaamaa dawaaf. marka dawaafka dawaaf alquduum inaad samaysid sunno waaye. inaad soo gashid inaad samaysid waa sunno. dawaaf alquduum waxaa sunno ah ragcatu dawaaf
dawaaf markaad dawaafsid sideedaba laba ragca inaad dukatid waxaa waaye sunna waay. التلبية إن لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن قاعد إلى حوالي مدو مكان حراتي بلقب الله إلى مدو مركا ميل مركا خطتي وهو أسخاب أسخاب بشيء مركا وحس بدلانه كله لبيك اللهم أتنا مركا بور فولي مركا دقيق مركا جيفني هذه مركا وحس بدلانه إن ترهدي لبيك اللهم أريد أسأل ترهدي سنوة waxaan dhahnay in laba dawaaf la sameeyo sunno waaye. dharka aada gutanaysid waa dhar furan waaye, waajib waaye kaas, laakiin inuu cadcad yahay waa sunno, inuu cad ka dhigto sunno waaye. qofka waxaa ka xaaraama marka waxaa ka xaaraama in uu xirto shay mukhiid ah, tolan, shal ah, shaar, buumo, waxaa la yihahdaa khamiis, macawiis oo aan furnayn inuu xirtaa waxaa waaye xaaraam ku yahay. inuu madax dabashaa hadduu rag yahay xaaraam ku yahay. haween haddii tahay wejiga in daboolata xaaraam ku tahay fi madhab shaaficiy. qofka tinta inuu shalleeya ah, tinta in go-ido manaha tinta ka go-ido xaaraam waa, oo ogyahay in go-ido. inuu cijiyaha jartaa xaaraam waa, inuu isdhiibiyaa oo iscarfiyaa xaaraam waa, inuu ugaarta bariga ah inuu dishaana xaaraam waa, inuu nikaax sameeyo asiga wax ku nikaaxiyo dad ama si lagu nikaaxiyo waxaa waaye xaaraam waa. inuu wadii sameeyo haweentiisa u tago xayladiisa u tago xaaraam waa, jimaaco xaaraam waa. hadduu wax soo sameeyo waxaa laga rabaa video, wax la yihahda video ayaa la rabaa. laakiin caqdi nikaaxa markii qofka caqdi nikaaxa fid laga raba maxay caqdi nikaaxa sidiisa maba dhacayaba, laakiin intaa kale waa dhacayaan. xajki waxaa fasahadi karo oo buri karo waxaa la yihahdo wadi. haweentaada u tagtid oo jimaacdid wadiga waa wadigaasa burinayo xajka. asigoo burayna wixii la samayn jira waa samaynayda. qadana waa kugu waajiba, fidya weyna waa kugu waajibaysa oo geel ah. qofkii man faatahu lwuquuf bicarafa, qofkii inuu carafo istaago oo wuquufkaas u ka tago, tusaale wuxuu ahaan kartaa in jidkiiba laga celiyo oo soo mari lahay, kadib isagoo xilligii carafaad la dhaafay ala soo daayay. qofkaas muxuu sameynaa taxalala bicamali cumrata, cumro camalkeedu ku xalaal noqona camalka cumro sameyna, camalka cumro ayuu sameynaa. dawaafa sacyi bayna safa walmarwa uu sameynaa, madax u xiirina khalaas, saasuu ka xalaal noqday, dharkiisuu ka sharcay. xalaal noqdee waxaase laga rabaa wa calayhi alqadaa walhadi, xajkaas sanadka lagu soo qadayna, hadyina waa bixina nafru qala. qofkii rugni ka taga, rugni arkaantii waxaan soo sheegnay inay ahayd wuquuf carab rugni ka mid ahay, laakiin dawaafaa jiray oo rugni ah, asai bayna safa walmarwa ayaa rugni ahay, alixraam biniya ayaa waxa ahayd, alixraam macaniya ayaa rugni ahayd. marka rugnigaas afartaas rugni wuquufu carab hadduu ka tago qaabka u xalina waa sheegnay, qaabka u xalina waa sheegnay. hadduu rugni kale u ka tago marka rugni horta tan soo xirashada ah oo niyada ah kaas laga maarmaan bu waay, oo markaas inuu niyeysto soo niyeysto taasoo. laakiin kuwanka waxa waaye kaas qalbiga ku dhacaa intaa ficilka waxa waaye dawaafki iyo sacyi bayna safa walmarwa, labadaas ma tagaan, maba tagaan ba. haddii uu inta caraf oo wuquuf carafa oo sameey, wuquuf carafa oo aaday oo soo istaagay musdalifa iska imaaday, kadib wuxuu isku soo dhamaystay mabiidkii mina isku soo dhamaystay, beydka ma usoo gudbinba. dawaaf laga rabay oo dawaaf rugni la yihahdo ama dawaaf ifaadaya, dawaafka rugniga ayaa ka maqan, laakiin waa iska soo baxay, wuxuu iska deganaa jiddu iska yimid. kadib waxaa la yidhi maxaa soo samaysaday, intaas samey intaas wuxuu sameeyay dalafiis waxaa ka maqan laba rugni. rugni mid waa dawaafkii, midna waa asacyi bayna safa walmarwa sacyi,
labadaasa ka maqan ama mid kamida ka maqan hadda baxaa leeyahay tag soo dawaaf saa ay soo sameeyay ana kuwaas waqtigood ma baabo rugaas oo kalima inuu lima wala baahaya tan ugu daro waxba marka عرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة حج كواب عرفة أنا كسوق خايب أنا وحوارون وين واي وقتي وليه مكان لي وقتي وليه وقتي صدافة خلاص كسوق كاتب ومش وفضل بدن مش وحنا معي هذا وفضل بهذا هنا ماين la xureeyo inta ilaahay wax xureeyo maanta ugu badan yihiin saas u laasaqsan alxaju carafa qofku marka waajibka taga marka waajibka rugni waa soo sheegnay qaabka u xalina qofka waajibada noo soo sheegnay almamid bimusdalifa kamid ahayd dawaaf wadaaca kamid ahay marka kuwaas aan soo sheegnay soo xalina wuxuu ka tagay waajib uu yahay lazimahu dam iyagu lazimahu mabiidkii oo la baryaayay musdalifa ka tagay ama mabiidkii la baryaayay mina inuu ka tagay iyagu bixina meeshaan qabowgeedii inuu joogi kari dhibkeeda sariiri iska aada meel iska degana waa soo laaban markuu meel ka dego nin haddii iyagu iska bixina khaas haddii iska bixiyo wax loo haystaa qofkii sunno ka tagana lam yalzamhu shay qofkii sunno ka tagaa wax shay bule ajriga ka tegi maayo wax laga rabo hadda dhiig laga rabo ma jiro una qaba dhihi maayo una qaba dhihi maayo insha allahu tacaala muxaadaradayna ee dheeray noo soo socotay waqti dheer halkaasaan kusoo gabagabeynana assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu